بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نبض وضيال لما أنتم كسر دوادا مر لبعض إيه حلقة ديني يعني مركزي ينوس سعتي تصمو يعني قلت لك أنا بيش بركيسان رمضان إني نوقف فائدة سنة حلقة ما أنت وحين كجهل لدونا إني وقت جيسين وقف فائدة سلهين إن أدنى واحد هاي مالمو حديت تكتم مالي واحد تجي بركة وحلقها هي أراه ذاسي حسن البصري رحمه الله وحن هاي مالمو حدي مالي إن أنا جت تكتنا تجي بركة ميدان ولا شينا دقيقة كستا ساعات كستا وبري كستا بيل كستا يجو كستا أو كتجا مركا أما نلاش هذا كقاء وقيب كميدان ولا شينا وحيناسي ودان حاجة جريدة أم بجوجا وحيناسي قلبنا ينقد كمجد جبدان له وحنا يناسي ودان سيد طلابة كستا قادنا ماشي أسعني نو جالسيسو ساعات كستا أو وقت جينا نصامرتا وحينور دوين سماشي لمهوران كهيدين دمانتين أسعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أو كهلاي سيدا مهمة يقول هاي قفك وقت جيسين وكفها إذا استعملت آخرة أي سيدا لو جب هاي أيو لها قفك مركز هو استياجو ماشى لسكو حسابه أيو كمر دقائق إلا لو يديو أفر إلا لو يديو أفر تعالى بكم إذا الرسول وكوش شيء إن عمر جتهاي مت كم إذا ستة صوحي أوران الساعة مركزي مت كم إذا ستة صوحي أوران الساعة إنه قفك كفها إذا استو عمر جيسة أو لها قفك وحل ويدين دونا يعني قفك إلا لو ويديو أفر كمر دقائق ماشى لإسكو حسابنا أفر تاسي واحد وجهري إن لبا مركاسي عمرك الله حديدا ستة ميد واحد وأرنيسا عمرك هاجي محد وجسوا فائدتي محد قصة قصتين الله شادي جود أدو فين تجوكتي ميت كلنا ووقت أن عمرك الله حديدا وواحد ويدين دونا دنيار لماذا بي محد وجسوا فائدتي إذا واحد قلت سنة عمرك إنه يهاي واحد وجمهم سنة ما أنت آخره تتكلم حسابنا waxaa la yaab leh waxaad arkaysaa qof ku imanaya bisha Ramadaan oo koornay waxaan ciyaarayay amba waxaan qabanayay waxa soo faa'iido badan runtii lahayd markaad weydiiso maxaad u sameeynaysaa wuxuu koornay waqtigan dilaayay amba waqtigan iskaga ridaayay yani maskiinimo awgeed ma garanayo qofkaasi xataa waxaan uu leeyahay waan dilaayay waxaan uu leeyahay waan isdaafinayay inay tahay markaa noloshiisii oo dhan dadka adduunka guuleystay aakhirana sahayda wanaagsan u qaatay aan garanayna qiimahooga ugu horeeyo markaasi in saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu bay garteen qiimaha waqtigu leeyahay waxaana uga faa'iideysteen wax kale oo qiimo badan waa kan Abdullah ibn Mas'ud oo leh uga maan qoomamoon shay sidan uga qoomamooday maalin ay cadceedu dhacday markaasi oo amalkayguna siyaadin ashashayduna ay soo dhawaatay ama cimrigayguna soo gaabtay waxay ku tusinaysaa sidii waqtiga uga faa'iideysanayeen Allah u naxariistay abwaan gaariyana wuxuu lahaa hadaa guuga ku gardaa gabo mooye ku tarin garaad iyo waayo arag ilaag wax ma dhaantid geed waxay ku tusinaysaa runtii qofku hadii uuna qodobayn kareen sanadkii dhamaaday wuxuu uga faa'iideystay sanadka dambana uuna ka lahayn haduu ilaahay nafta u daayo noolaado qorshe cad oo rabo inuu fuliyo inuu ku sifoobi karo sifadaasi oo abwaan ku sheegay alla raxristi jannaha ka waraabiye luminta waqtigu waa mushkilada ugu weyn ee haysata dadka guul daraystay waa cadowga guusha waana wadada guul darada waa xaqiiq in shakhsiga luminayo waqtigiisa oo yahay markaasi maskiin sabool ah allah u naxariistay abwaan xaaji aadan afqalocna wuxuu lahaa israafkiyo fadhigu waa waxad ku ambanaysaane axmaqnimo waqtiga kaaga tagay oo hin kugu reebiye axad ayaantii ku dhaaftaa waa waxaan la eegaynay axadkii kaslaan ah sabool abidkii weeyaan xaqiiqadu waxay tahay qof kasto kaslaan ah qof kasto caajis ah oo waqtigiisa wax mid dhan oo faa'iido leh uga faa'iideysan inuu markaasi saboolnimo markaasi ku lumaayo intaas waxay ina tusinaysaa waqtiga iyo qiimaha uu leeyahay hadaba su'aal kale maantana waxay tahay sideen bisha Ramadaan uga faa'iideysanaa inaan waqtigeena markaasi ka dhigno wax jilwadeysan oo markaasi aynu uga faa'iideysano wax faa'iido leh rasuulka Ciise salaam isagoo arinta inoo tilmaamaya wuxuu inoo soo bandhigay oo ina faray ka faa'iideysta shan horteed wuxuu lahaa yaqtanim 5 qabla 5 shan ka faa'iideyso shan horteed wuxuu lahaa xayaatika qabla mawtik noloshaada ka faa'iideyso geridaada ka hor wasiixatika qabla saqamik caafimaadkaagana ka faa'iideyso xanuunkaaga ka hor wa firaaqiha qabla shaqalik ka faa'iideyso firaaqaaga waqtiga firaaqaada haysato intaanad markaasi mashquulin wa shababika qabla haramik ka faa'iideyso shabaabnimadaada iyo dhalinyarnimadaada
كهر أنت أنا جبوبين وغنائك قبل فقرك وحكلت كفائدة ستان إن مركز غني مدينة ينت ضحى ستان كهر أنتم فقر نقولين كنت ورسولك عليه السلام وين برايا سين وقف فائدة سنة هين فرصتها فرح بضن له إنه لشة كتيرة الشيخ محمد غسالي حرس الجنة الله كورابيه وحولها هدان دونه إذا أردنا النجاح والفلاح هدان دونه جوشة waxaan u baahannahay inaan bedelo asluuba xayaatina nolosheena iyo asluubkan u noolahay sheekuna wuxuu soo bandhigaya si aynu asluubkeena u bedelo meesha aynu ka saarno waxa firaaq la yiraahdo qofka muuminka waxa lagu yaqaanaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam sheegay qof markaasi ka faa'iideysta waxa markaasi oo hayo oo fursada ah waqtiga aan dayicin mirir kastana oo arkay inay tahay mirir mudan in wax looga faa'iideysto oo markaasi qiimihiisa leh aan mudnayna in meel lagu dayaco هذه أضربتين تقولي ستو هذه أضربتو إن وضد جوش رعدو هذه أضربتو أدون كينات صحيح قاعدتو قولنا أتكجادو آخرنا مركز ساد وناسن الله تكتو وحن باطلة كسر نلش هذا وحلا لحظة فراغ يوقت